Soomaaliya Ethiopia Eritrea in ay dhaqaale ahaan isu dhaxgalaan waa ogtihiin Ethiopia ilaa 1532 bay noolahay ilaa Axmed Gurey gowdaynu isku haynay 600 oo sanadood colaad ah baa Ethiopiaanka inay dhex taalay anu waxaan xasuustaa yaraantaydii marka ay bishu bilato waxaan oran jirnay bishii bilataba barbaa ka hadhee allow xabashida xabaal ku rideey Soomaha intii soo gaadhay waxaana lagu koriyay Ethiopian nacayb waxaana lagu koriyay xabash nacayb waxaana lagu koriyay in qofka Ethiopiaanki qof cadow ku ahuun uu yahay anu aad sabaan waxbarasho u tagay 94kii dadna inaan amxaarabaanu historyga wada dhiganay wuxuu igu yiri niyow ma Soomaali baa tahay wuxuu yiri dugsiga dhexe aan oo dhigta Jimma ayaa markii standardkii imtixaankiina laga qaaday baa macallinkayagi filimna daawadsiiyay bahalkan la yiraahdo dinosauriska soo garan maysaan ee la yiraahdo dunida uu ka dabar go'ay ayaa filimka kamid ahaa waxaan ku yiri macallin waxaas ma Soomaali baa wuu qoslo wuxuu yiri ma Soomaalidu waa dad inala mid ah laakiin col baynu nahay waxa kale uu iga sheekeeyay xisaabihii masalooyinka loo oran jiray intaynii dugsiyada Soomaalida wax ku soo baratay hoose dhexe sare soo masalooyin waa soo marteen Soomaha masalada markay iyaga loo dhigayo waxa loo dhigi jiray diyaarad MiG 17 ah ayaa qaatay intaas soo haamood oo mid walba intaas soo qumac uu ka dhacayo Muqdisho iyo Hargeysa ayay bam garaysay bayloodkii ababe ee waday hadii 5 qumac uu Hargeysa ku rido 5 qumacbana xamar ku rido qumiciibana intaas soo madax uu leeyahay intaas soo Soomaali ahna uu dili karo imise Soomaaliya buu dilay nacaybka lagu beeray waa educational psychology goodii ma ogtahay nacaybka lagu beeray eeg madaxweyne farmaajo waxa uu hormood ka noqday inaynu dhaqaale ahaan isu dhaxgalno walaalayaal oo colaad uma baahnin nabad baanu u baahanahay hadii la dagaalamay 77kii iyo 64kii hadii la dagaalamay 1532kii Axmed Gurey oo Soomaali ahaa iyo Soomaalidii uu watay ilaa Galadios ay daga shimbiro kure iyo ambagishan ku jabiyeen labada goorba Yurub baa u soo gurmatay 1532kii Portugiis baa u soo gurmaday Vasco da Gama ayaa taqaaneen walaalkii Christopher da Gama oo 400 oo Portugiis u watay ayaa u soo gurmaday Kristaanka awgeedna uu soo gurmaday Axmed Gurey Portugiis baa dilay ogaada Soomaaliya may dilin Ethiopia taariikhda ka marakacaysa mar labaad 77kii baynu istilnay naasireed ilaa sababo dusheeda ciidamada Soomaalidu gaadhay waa ogtihiin Soviet Unionkii aynu iska saarnay Mareykan iyo Ingiriis iyo midowgii Sovieti ama Eastern Bloc iyo Western Bloc waxa loo heshiiyay Soomaaliya bila saaxiib ay noqotay soo marxaad kamayna wada ahayn la socay waxa la soo waayay Soomaaliya saaxiib ay leedahay walaalayaal waynu surrannahay xabaal iyo ninkeed loo kala tag Soomaali haddaan nahay inaga ay suran 30kii sanadood ee maanta aynu burbursanayna miyaa aragteen cid inoo soo gurmatay mar walba marka Ethiopia wax daaraan waxa uu soo gurmanaya walaalaheed reer galbeed maantadan oo ay Oromo gacanta ku hayso xukunkii dirqo kuma imanin waa loo soo gurmaday Mengistu Haile Mariam markii uu dhacay baa loo soo gurmaday inaga haddaan cidba inoo soo gurmanahayn in aynu nabad ku noolaano Soomaha in aynu garanno masaarida 100 milyan iyo dheeraadka ah Israa'iil shaayar bay dooratay inay la noolaato nabad kula noolaato maadaama ay loodi kari weeyday Jordan baan tagay waxaan ninkii boqor Xuseen ahaa nin aad u maskax badan buu ahaa meesha Aqaba la yiraahdo baan shiru tagay Aqaba waa meel yar oo sida U shape ka leh halkan waxa ku taala Aqaba daarta ku xigta waxa ku taala Eilat leerkii Israa'iil waa ku muuqda daarta dhinacan ku xigta waxa ku taala Sinai halka waxa ka sii xigta Saudi Arabia afartii leer baa sida isugu muuqda waa meeshii Salaaxudiin al-Ayyub Aqaba dhinaceedani uu ku jabiyay Kiristaankii isa soo kaashaday waaga laakiin boqor Xuseen wuxuu isriiseed ku jiri kartaa Israa'iil kaligeed ma reer galbeed oo dhan baa ka dambeeya nabad ku noolow islaamnimaduna nabad ku diidi mayso yuhuudu waa uu la ganacsanayay nabigeena Maxamed aha Madiina Soomaha soo taariikhda islaamku kama rakici mayso walaalayaal hadii Israa'iil nabad lagu la nool yahay
ومحي سببت اللوجة قيلنا هي محل له شيء إثيوبيانكا محل له شيء إريتريا محا إسدحجال كدقالة قبلك مدحونه إنه هرمود كوجيه أنه النبض بانو بدني دقالة هي هناك بانو بدني هذيك لو واحد عايز قبائل بين الصومالية إن الحل كاسون لينو إدارته شل يسدي شبهها مد ولا بس حرف كهراء إساق أسنا بيلبحان هوية USC بيلبحان دارود SSDF بيلبحان رحوين مرضن بآرار يلبحضي ورما واحد ربطان شبهه كان الكي مركي أو نصوح دون مدحونه صور حدوي يدين نوضع نقوض النورانينا وحل يرهاي محل له الشيء وحل الربائن أسون مقع الله سوهيو مركي مدحونه اللي يصير في قروم هايو أدي سوا قبل ده أنو تكنين هاي النقطة waxa mucaaridka aanu isu hayna ee isdhexgalkii dhaqaalaha aanu isugu hayna waxa weeye maxaa nabad u qaadateen